19 bisha Oktoobar 2020 magaca sharcigu waa magacaabista golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble markii uu arkay qodobka 97 farqadiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 98 farqadiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 100 xarfihiisa ba a ba iyo ca ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka 1 xubnaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ra'iisul wasaare ku-xigeen. Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, wasiirka cadaaladda. Mudane Cumar Cali Roble, wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta. Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka. Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka wasaaradda maaliyadda. Mudane Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. Mudane Xasan Xundubey Jimcaale, wasiirka amniga gudaha. Mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Marwo Maryan Aweys Jaamac, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Mudane Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta. Mudane Saalax Axmed Jaamac, wasiirka wasaaradda dastuurka. Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar, wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka. Mudane Khaliif Cabdi Cumar, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Mudane Saciid Xuseen Ciid, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. Mudane Cusmaan Abuukar Dube, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska. Mudane Cabdi Sheekh Axmed Roble, wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda. Mudane Marwo Xaniifa Maxamed Ibraahim, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. Mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka wasaaradda betroolka iyo macdanta. Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen Badni, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa. Mudane Xasan Cabdi Nuur, wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha. Mudane Duraan Axmed Faarax, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Mudane Maxamed Aadan Macalin Soomaali, wasiirka wasaaradda howlaha guud, guriyeynta iyo dib u dhiska. Mudane Xamza Saciid Xamza, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga. Waxaan ka xumahay in khalad yar uu dhex galay. Waxa aan rabaa inaan caddeeyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad
ayaanan magaciisa sheegin marka waxuu ka mid yahay wasiirada raalli ahaada marka wasiiru dowlayaashu waxa ay kala yihiin mudane xasan macalin khaliif wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane cabdixakiin xasan ashkir wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane yuusuf xuseen axmed gamaadiid wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda mudane maxamuud macalin yaxye wasiiru dowlaha wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo arrimaha diinta mudane maxamuud xayir ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane aadan cabdinaasir maxamed wasiiru dowlaha arrimaha gudaha mudane marwo shukri maxamed afrax wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha mudane cabdulaahi bilanuur wasiiru dowlaha boostada iyo isgaarsiinta mudane cabdiraxmaan kulmiye xirsi wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka wasiiru dowlaha gaadiidka cirka iyo dhulka mudane cabdiraxmaan maxamed jabiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane farxaan cali axmed wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane cabdallah xaaji cali wasiiru dowlaha qorsheynta mudane maxamed xaaji ibraahim cali wasiiru dowlaha dhalinyarada iyo isboortiga mudane balal maxamed cusmaan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda mudane cabdi axmed qaasim wasiiru dowlaha shaqada iyo arrimaha bulshada intaasina waa wasiiru dowlayaasha qodobka saddexaad xubnaha wasiir ku-xigeenada mudane cabdicasiis maxamed maxamuud qambe wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda mudane maxamed sheekh aadan huraale wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta mudane isxaaq maxamed maxamuud abow wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka marwo fahmo axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha marwo sahre xaaji xuseen cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane axmed xuseen macalin gurey wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane cabdulaahi sheekh cali qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska mudane cabdilfataax qaasim maxamuud cabdilfataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdirasaaq daahir maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane marwo nuuriya aadan ciise horaan u akhriyey nuuriya aadan ciise wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdirashiid maxamuud xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta xuquuqda aadanaha mudane daahir cabdi cabdulaahi doctor go wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha mudane xisi aadan roble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane caadil sheegow sagaar wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha mudane cabdiraxmaan hiidaan yunis wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane xaamud cali xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha mudane axmed cumar islow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga mudane lutfi shariif maxamed cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka mudane cabdinaasir xuseen geedi wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska mudane maxamed cabdulaahi siraaji wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdulaahi cumar abshirow wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda
mudane cali maxamed sheekh cali bagadi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga mudane amiin axmed sheekh wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo betroolka iyo ugu dambeyn mudane mahad maxamed xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda marka la raaliga ahaada marwo fawziya abikar nuur waa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya